sheekada 12aad baxniintii Israa'iiliyiintu aad ayay ugu farxeen inay ka tagaan Masar waxayna rabeen inay adoonsiga ka baxaan oo ay tagaan dhulkii loo ballan qaaday dhulkii uu Ilaah u ballan qaaday Ibraahim iyo faraciisa Masaaridiina wax kasta oo Israa'iiliyiintu weydiisteen way siiyeen xitaa dahab silfar iyo wax kasta oo qiimo leh oo ay weydiisteen way siiyeen dadkii kale ee Masar ku noolaa ee aaminsanaa Ilaah iyaguna waxay raaceen Israa'iiliyiintii oo way ka baxeen Masar Ilaah ayaa Israa'iiliyiinta hogaaminayay oo daruur har leh ayaa maalintii qorraxda ka ilaalinaysay habeenkiina iyada ayaa iftiin u noqonaysay Ilaah ayaa la jiray oo hogaaminayay iyaga intay sii socdeen safarkooda oo dhan waxaa laga rabay oo kaliya inay Ilaah adeecaan waqti yar kadib Fircoon iyo dadkiisa way bedeleen fikirkoodii oo waxay rabeen inay weli Israa'iiliyiintu u ahaadaan adoomahooda way ka soo daba baxeen si ay u soo celiyaan Israa'iiliyiinta Ilaah ayaa ka dhigay inay bedelaan fikirkooda Ilaah wuxuu tan u sameeyay inuu tuso inuu isaga ka awood weyn yahay Fircoon iyo asnaabta uu caabudo Fircoon iyo ciidankiisii ayaa ka daba tegay Israa'iiliyiintii si ay mar labaad uga dhigaan adoomahooda markay Israa'iiliyiintii arkeen ciidankii Masaarida oo soo socda waxay ogaadeen inay ku xayiran yihiin badda cas iyo ciidankii Fircoon dhexdooda aad ayay u cabsadeen waanay ooyeen maxaan Masar uga soo baxnay halkan ayaan ku dhiman doonaa Muuse ayaa dadkii ku yiri ha cabsanina Ilaah ayaa maanta idinla jiro oo idin badbaadin doono Ilaah ayaa Muuse u sheegay inuu dadka ku amro inay xagga badda cas aadaan daruurtii harka lahayd ayaa kala dhex gashay Israa'iiliyiintii iyo Masaaridii kadibna Masaaridii way arki waayeen Israa'iiliyiintii Ilaah ayaa Muuse u sheegay inuu gacantiisa ku aadiyo dhanka badda si biyaha badda u kala qaybsamaan kadib dabayl ayaa biyihii u kala qaybisay midig iyo bidix oo waddo ayay noqotay meeshii biyuhu banneeyeen Israa'iiliyiintii ayaa badda dhex maray iyagoo biyuhu labada dhinac ka xigaan daruurtii u kala dhexaysay Israa'iiliyiintii iyo Masaarida ayaa Ilaah sare u qaaday si ay isku arkaan Masaaridiina way soo yaaceen si ay u qabqabtaan Israa'iiliyiinta kadibna Masaaridii ayaa soo daba gashay Israa'iiliyiintii badda dhexdeeda laakiin Ilaah ayaa cabsi ku riday Masaaridii oo waxay dhex istaageen badda dhexdeeda waxayna ku khayliyeen orda oo carara Ilaah ayaa u dagaalamaya Israa'iiliyiinta markay Israa'iiliyiintii si nabadgelyo ku jirta ugu wada tallaabeen badda dhinaceeda kale ayaa Ilaah Muuse u sheegay inuu gacantiisa kala bixiyo mar labaad wuuna adeecay Ilaah kadibna halkaas ayaa ciidankii Masaarida ku baabeen oo baddiina caadi noqotay iyagiina baddii ayaa liqday markay Israa'iiliyiintii arkeen Masaaridii oo dhintay Ilaah ayay rumaysteen waxayna aamineen Muuse inuu yahay nebigii Ilaah Israa'iiliyiintu waxay aad ugu farxeen siduu Ilaah u badbaadiyay iyaga kana saaray adoonsigii ay ku dhex jireen hadda waxay noqdeen kuwo xor u ah inay Ilaah caabudaan oo ay adeecaan amaradiisa Israa'iiliyiintii waxay bilaabeen inay heeso Ilaah amaana qaadaan oo ay farxad ku dabaaldegaan muujiyaanna xornimadooda iyo sida Ilaah u badbaadiyay iyaga Ilaah wuxuu ku amray Israa'iiliyiintii inay xasuustaan sida ay uga guuleysteen Masaarida ee Ilaah uga xoreeyay adoonsigii heestay waxaana lagu amray inay sanad kasta u dabaaldegaan madax furashadoodii waxay bilaabeen inay ku dabaaldegaan iyaga oo qalaya neef caafimaad qaba iyo rooti aan khamiir lahayn iyaga oo xusaya sida uu Ilaah uga soo badbaadiyay Masaaridii